tani waa dhacdo argagax leh oo ka dhacday waddanka Mareykanka. Haddaba dhalinyartan Soomaaliyeed isku geysatay xambadaha kuwani waxay hayeen koox burcada. Waa koox burcada oo is urursatay oo Soomaaliyeed kuwaas oo ka dhacaya hantida dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka. Haddaba dhalinyartani waa burcad sidoo kale waxa kaamirooyinka qarsoon ee laamida duubeen iyadoo muuqaalo live ah dilaya ama kamid ah dilalka xun iyo sidoo kale baaskooladaha loo adeegsanayo dhalinyartaas halkaas ay ku qabtaan kolba mid. haddaba saaxiibayaal waxaan soo gudbi doonaa muuqaalo sira oo duubtay kaamirooyin qarsoon ee ku xiran iyo sida ay wax u dhaceen. haddaba saaxiibayaal ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa si ay walaalaheena Soomaaliyeed ama dhalinyarteena Soomaaliyeed ugu gargaarno fadlan muuqaalka like sar si uu gaaro dad badan oo Soomaaliyeed siina share gare fadlan channelka subscribe. haddaba isku soo noqdo wanaagsan saaxiibayaal dhacdadani waxay ka dhacday waddanka Mareykanka. kuwani waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo si arxan darro isku leynaya madaxooda wuxuu kaga dhufteen baaskoolad iyo sidoo kale doori kaga taala dhabarrada. haddaba saaxiibayaal wiilkan waxay ku dilayaan dhalinyartan burcad ay ismidaysatay in ay kala wareegaan xoolaha uu soo shaqaystay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen. haddaba weerarkan iyo sidoo kale waxa soo gaaray booliiska waddanka Mareykanka kadib iyadoo loo qaaday. haddaba dhalinyarta Soomaaliyeed waxay habeen walba sidoo kale ka qaraabtaan wadooyinka waaweyn ee magaaladan. haddaba sidoo kale waddanka Mareykanka waxa ku soo badanaya dhalinyarta Soomaaliyeed kadib markii madaxweynaha hadda cusub ee Joe Biden fasaxay in ay soo galan karaan wadamo badan oo berigii hore ka mamnuucay Trump. si kastoo ay ahaataba Trump wax mamnuucay dalal ay ku jirta Soomaaliya. haddaba sidoo kale Joe Biden hadda ku guuleysta ayaa sidoo kale fasaxay in ay soo gali karaan dadka sidoo kale Afrika iyo sidoo kale Soomaaliya waxa ku jirtay. haddaba sidoo kale muuqaalo siro laga duubay kaamirooyinka qarsoon iyo sidoo kale muuqaalo la yaab leh iyagoo tooriyeynaya qof walba oo halkaas soo maray kadibna lacagtii ka dhacaya. haddaba sidoo kale muuqaalada hor muuqda bal waa kuwan ee la daawo. والله ninkan nin fiican weey ninkan أنا مستر الشارع حتى وصلت كشعب كل شغلة. أنت وش عارفني؟ كاميرا كويس حطها كل يوم بغينا بس. فلاني صح. وصلت عنك صح لا صح. لكن صدق. هذا الكاميرا. تو قالوا لا بقري. والله. أنا أقول كي عايش. ولا لا معك واسنا كينيا كيما أنا توك ما حدا توك ما ذكره. والله يا بنا خلاص أنا كل شيء يعني شوف رجال وفر ها وفر 15 مليون وفر بري حاجة ماشي حاجة تبع سرمو صح بس إن شاء الله شاكي مسعدة ما يعيش كلام سلعان ولا ياخذ رأي ولا كيسينا هذه من وقوع استان حفظ قرار كاش عبد الحاق صح تركيا لا أقول لك بس هي زال كي واحد من الدشة عاد وش صح ماشي سبنان صح ها حافظ بالشرع أفريقيا برنامج كذا بس ها بس صاحبنا يصدق هاي لما كمل وانا قاعد هاي هاي قلت هي هذه طالب بهوس قبل يجري هاي محمد الصاد يلعب هو هنا هاي لعب هو يمكن هذا سرو مصاصة بعد مذيعين مري رجع خطرت هو كم غير كاره ضفتني غير رجع تلفونات تفاعل بسم الله عرض سيف ماني يا واحد ما رجع في جري خالص يا حرتي داير على سوبر مدير هلا داير على سوبر ديزاين مدير هلا باي تلفون ده بيجري بيعمل مدير واقرتي وانا كمان ورثني هذا واقرت ما هي كاس صوب تلفون كاغا وصوب كاش ابكي اركان ما واحد يمكن تلفون لما كان فوق اللاعب لو ما فكرين كاش ابكي يزيلي هاي ما كاش ابكي هاي ساسين يقدر ما يعملوا قبل سنه بنك يسكر عيناي نور هاي بنك مليدا ها موضوع سكر عيناي هاي هذا مالينيا بنك بوليس واقلين كان استحباب تطوبونيه ياكلين
هذا أكيد ما أكيد قالوا قلت هذا أكيد حبل مسارد هذا ولا ماركر ugu dambeyn nimankii burcadka ahaa ee falkan ka dambeeyay ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana muuqaalo laga soo duubay wajiyadooda hadaba waa kuwan booliska uu ku sii wiilka Soomaaliyeed hooyadiis ay soo garanayaan uu dagaalamaya yes uu dagaalamaya don't fight just surrender listen the police listen the police calm down don't resist yeah this is the guy that who terrorized all the people on outside waa kaas wiilka Soomaaliyeed midkood waan ku hayaa sad u jeedaan waa la baarayaa xabad baa lagu qabtay sida la sheegay waalidkiis waxaan rajaynayaa in la heli doono waa la baarayaa years والله يا yes كيف كملت Somalia يعلنا You're doing a great job, sir. Yeah. وعندما يدرع عدا بصلوا ذي وطن هوكو ذي وطن صدق جدًا. وعندما عندما يدرع عدا والله حري ولا قليي قدها قليي yes sir. You're doing a great job. Yeah. ولا قليي كاويلك الصوماليات ولا قليي وكاس وكاويلك الصوماليات أير هو يا أبو مقعود شيخ هو يلا they will come to the courts what's your name يا أدر we can help you we can help you huh you belong to us you're our family what's your name brother what's your name أدر مقعود أويل Somaliet. Thank you, sir. Gari kala ayaa la keenay. Gari labaad ayaa yimid asagana la qaadayo. Sir, welcome. Gari labaad ayaa yimid asaguna. Soomaaliga labaad ayaa la qaadaya asagana. Kuwii labaad ayaa la qaaday. Welcome, sir. Yeah, welcome. Wiilkii Soomaaliga ahaa. Koowaadkii labaad ayaa la qaadaya. Waa idaacadda Soomaaliyeed ee madaxa bannaan waa idaacadda wareegta ee meel kasta taagan ma garateen derbiga ayaa lagu sii xirxiray soo jeedaan derbiga lagu sii xiray waa laga furay xabadii waa laga furay silsiladii waa laga furay laakiin gaariga waa lagu xirayaa kii labaad baa la soo saarayaa Soomaaligii labaad You're doing a great job, sir. What they do, man? Hey, don't put me on that. No, you. I need you to back up some, okay? We got a bunch of guys that are back to you guys. I don't like it right now. Waa la baarayaa. Hub baa laga baarayaa. Waa Soomaali Bantu kii kalena wuxuu ahaa Soomaali Faradheer. Wada jeedaan. Good job, motherfucker. Wada jeedaan waa la baarayaa. You're doing a great job, sir.